الله تعالى وبركاته magacaygu waa Muxyidiin halka aad naga daawanaysid waa Hikadshe channel ama kanaalka Hikadshe halkan inta badan waxaan ku soo gudbinaa waxyaamaha horumarka u horseedaya dadka Soomaaliyeed meel walbo ay joogaan maantana waxaan wadnaa mowduuc cusub mowduucani waa lama huraan mowduucani wuxuu leeyahay ama ciwaankiisu yahay sidee luqad cusub loogu bartaa si fudud waa huba inuusan luqad cusub kaliya ku koobnayn balse wax walba oo hami iyo han aad ka leedahay nolosha inaad xaqiijiso waxaa lama huraana inay leeyihiin wadooyin loo qaado waxaa jira dad ka horeeyay oo sameeyay waxyaabahan sidoo kale waxaa jira dad ka dambeeya oo sameyn doona waxaa jira sidoo kale dad hadda kula sameynaya adiguna ah ka mid tahay waa lama huraan inay jiraan waxyaabo aad u mari lahayd ama wadooyin haddaa meel walba rabtid inaad gaartid dunida waxaa jira wado loo qaado ha hilmaamin inaad wadada heshid si aad meesha u gaartid mowduuceena maanta waxa weeye sidee luqad cusub loogu bartaa si fudud waxaan kaga hadli doonaa okay waxaan samayn doonaa insha Allah horudhac waxaanu faalo ka bixin doonaa waxyaabaha lagama maarmaanka ah ama waxa weeye ujeedka ah u baranaysa tusaalahan kale hordhacina maanta wuxuu ku saabsan yahay luqadda Englishka iyo qaabkii aad uga mira dhilan lahayd ugana gaari lahayd heer sare noloshaada marka su'aalaha isweydiinaysid ama su'aalaha hadda maskaxdaada ka guuxay waxa weeye aniga maskaxdayda ka guuxay waxa weeye ma waxaad rabtaa inaad dal shisheeye u socdaasho ama wax ka soo barato mise damac waxaad leedahay inaad dal shisheeye shaqo u doonato sababta ah luqadda inta badan waxaa loo bartaa baahi ayaa keenta baahida ku haysataa ma mid waxbarasho mise waa mid safar mise waa mid shaqo doon dalkaagii baa shaqo ka weyday ama shaqadii aad rabtibaad waxa weeye ama tusaalahaan oo kale salarigii iyo waxa weeye mushaarkii baa ku qanci weyday wax walba oo ay haataba adiga waxaad go'aansatay inaad luqadan u barato ujeed inaad shaqo ku doonato ama wax ku soo barato ama socdaal u gasho hadday jawaabtaadu tahay waxaad u baahan tahay inaad hesho furaha lama huraanka u doonistaada oo inaad fariintaada adigu dirsan karto haddaad heshana akhrisan karto nolosha waxyaalaha ugu muhiimsan waa wax akhriska iyo qoraalka qofka bini'aadanka haddii uusan qalinka aqoon qaabka loo isticmaalo waxaa loo dili karaa ama noloshiisa loo baabi'in karaa si fudud isku day inaad wax baratid wax walba oo la bartana waxa la yiraahdaa dadku waxa la yiraahdaa cilmi waxa ugu xun sixirka la yiraahdaa sixirkuna wuxuu ka roon yahay ama ka wanaagsan yahay cilmi la'aan marka hadalkan la leeyahay lagama wado dadku inay sixirka bartaan balse ujeedku waxa weeye xataa haddii aad sixirka baratid waxaad weli ka sii roon tahay qof aan waxba aqoon oo jaahil si ay taasi kugu suurta gasho waxaad u baahan tahay inaad luqadaas barato haddii aad rabtid dalkii inaad wax u socdaasho ama wax ka soo barato ama shaqo u raadsato wuxuu doona ha ahaado tusaalahaan ka America oo kaleba maanta rabtaa inaad aadid waxaa u baahan tahay inaad luqadda Englishka si fiican u taqaano waxa aan halkan ugu qeyday Englishku inuu lama huraan u yahay meel walba aas waxa weeye meel walba oo dunida aad tagtid waxaa jira qof luqadda Englishka yaqaan waa luqad caalami waana lama huraan inaad wax ka taqaano adigana si aan lagu gadan maalin adoo nool halkan waxaan kugula wadaagayaa dhowr qodob oo lama huraan u barashada luqad walba balse inta aanan u guda galin qodobada aan kula wadaagi doono ee ku sahli doona inaad luqadda Englishka si fudud ama waxyaabaha kale ee maadiga ama waxa weeye aqoonta la xiriira ee aad rabtid inaad baratid si fudud u baratid waxyaabaha ka saacidi kara iyo qodobada ku caawin kara inta aan u guda galin waxaan rabaa inaad isweydiisid su'aalahan afarta waa su'aalo muhiim ee noloshaada waxa weeye aad iyo aad ugu muhiim wax walba aad qorshaysid oo aad damacdid inaad ujeedkooda xaqiijisid tusaalahaan kale ujeedo waxaad degsatay luqadda Englishka inaad heer sare ka gaartid waxaad doonto u baro macna dantaa doonto kala haw su'aalahan waa lama huraan waxaad damacday inaad dugsi sare gasho ama waxa weeye dugsi hoose gasho ama waxbarasho kale ama xirfad barato tusaalahaan kale su'aalahan waa ku muhiim
waxaad rabta inaad jaamacad ku biirto su'aalahan waa ku muhiim waxaad damacday business inaad furato su'aalahan waa ku muhiim waxaad damacday inaad waxa weeye adiga shaqo noocay doonto oo horumar ku ah noloshaada inaad samayso su'aalahan waa ku muhiim okay su'aalahan isweydii si aad ujeedkaaga uga miro dhaliso su'aasha koowaad ee halkan nooga muuqata waxa la yidhaha haddii aad sanadkii lasoo dhaafay tusaale ahaan oo kale isku dayday maxaa kaaga qabsoomay tusaale ahaan oo kale haddii sanadkii hore aa isku dayday inaad baratid luqadda ingiliishka maxaa kuu qabsoomay heer noocee ah ayaa maanta joogtaa okay su-aashaas rabtaa inaad isweydiisid maxaase kaa hor istaagay hadday kuu qabsoomi waayeen warku wuxuu ku dheeyahay haddii aad luqadda barashadeeda isku dayday sanadkii hore maxaa kaaga qabsoomay haddii se aad waxa weeye ay kuu qabsoomi waayeen maxaa kaa hor istaagay maxay ahayd caqabadii kuu suurtagelin weyday inaad ujeedkii aad lahayd oo ah luqadda barashadeeda aad ka miro dhalin weydo su-aasha labaad maxay yihiin shaqada bilaha ama asbuuclaha ama maalinlaha ee aad qorshahaaga uga milo dhalin karto waa inaad taasna isweydiisaa su-aalahan adiga ayaa naftaada weydiinaya si aad waxa weye qorshahaaga uu kugu suurtagalo marka maxay yihiin shaqada bilaha iyo asbuuclaha iyo maalinlaha ee aad qorshahaaga uga miro dhalin kardho tusaale ahaan oo kale tanoo kale waxaa layidhahaa la noolaansha layidhaha war waxa ma la nooshahay mise waa rabtaa keliya su-aasha saddexaad qorshahaagu ma waafaqsan yahay xeerka smart waxaa jira xeer loo dejiyey wax walba waa lagu waa loo isticmaali karaa xeerkan wuxuu sheegayaa wuxuu taabanayaa 5 meelood 5 meelood waa lama huraan xeerkan waxaa lagu soo gaabiyaa ama waxaa loo soo gaabiyaa kelmad English oo yiraahdo smart waxa weeye waa qof xariif oo kale xariif weey okay mataqaana maskax badan oo kale ama waxyaalo kale xariif ku adiga tusaale ahaan kale marka eray walba xaraf walba oo kelmadda ama weedha smart kamida wuxuu u taagan yahay eray buu u taagan yahay eray iyo xaraf waa la kala garanayaa filaya waxaan leeyahay eray walba ee kelmadda smart ku jira wuxuu u taagan yahay word okay marka erayga s oo smart ugu horeysa wuxuu u taagan yahay specific war qorshahaagu ma yahay mid gooni ah mid go-an ma yahay tusaale ahaan oo kale intii aad dhihi lahayd waxaan rabaa niyow sanadkan inaan luuqad barto waxaad dhihi kartaa waxaan rabaa sanadkan inaan barto luuqadda Englishka okay markaan qorshahaagu waa go-an yahay oo waxaad ku kooban yahay oo ku soo urursan yahay barashada luuqadda Englishka okay xarafka labaad waxa weeye m war qorshahaagu ma yahay measurable wax la cabiri kara ma yahay maxaa laga wadaa la cabiri karo intii aad dhihi lahayd sanadkan waxaan rabaa inaan akhriyo 10 buug oo English ah waxaad dhihi kartaa ama kaaga fiican inaad tiraahdid war bil walba waxaan akhrinayaa 1 buug oo English ah si aan sanadkan horumar weyn uga gaaro luqadda Englishka barashadeeda okay taasna waa measurable war waxaan ma la cabiri karaya erayga saddexaad oo ah wuxuu u taagan yahay attainable war qorshahan ma yahay mid laga miro dhalin karo tusaale ahaan kale intii aad ka fikri lahayd wax aadan awood u lahayn inaad samaysid waxa kuu fiican inaad diiradda saartid waxa aad qaban karaysid waxaan tusaale kugu soo qaadanayaa intii aad dhihi lahayd waxaan baranayaa 5 luuqadood baan hal sano rabaa inaan ku barto waxa kaaga fiican inaad tiraahdo hal luuqad ayaan baranayaa laga yaabaa dadka qaarkood inay maskax fiican yihiin oo 5 luuqadood hal sano ay wax weyn uga soo saari karayaan sababtoo hal sano ma ahan waqti aad iyo aad waxa weeye u yar ma ahan markii loo eego 5 luuqadood dunidana maanta way hormartay oo wax walba way fudud yihiin oo si fudud ayaa lagu heli karayaa erayga saddexaad oo r ah wuxuu u taagan yahay relevant war wuxuu ma yahay wax xiriir la leh waxa weeye waxa aad doonaysid qorshahaaga macnaha tusaale ahaan kale erayga shanaad oo ugu dambeeya war wuxuu ma leeyahay time bound ama time based ma yahay
ama duration wax la yiraahdo ma leeyahay mataqaanaa qorshahaagu ma leeyahay waqti go-an ma leeyahay tusaalaanka intaad dhihi lahayd waxaan baranayaa luqadda Englishka dee luqadda Englishka goormaa baranaysaa ma 10 sano kadib baa baranaysaa ma 5 sano kadib baa baranaysaa ma markii waxa weeye 40 sano kadib baa baranaysaa haddii Ilaahay ku gaarsiiyo qorshahaagu waa inuu leeyahay waqti waa inaad tiraahdaa sanadkaas laga bilaabo bishaas ilaa lagu gaaro bishaas waxaan rabaa inaan xaqiijiyo qorshaha ah barashada luqadda English. Alright, so qodobka afraad ama su'aasha afraad ee lama huraanka u ah inta aad qorshahaaga guda gelin inaad isweydiiso waxa weeye maxaad caawinaad u baahan tahay si aad uga midho dhaliso qorshahaaga war maxay yihiin waxyaabaha aad u baahan tahay si qorshaha aad u xaqiijisid su'aashan waa lama huraan waxa u baahan tahay macallin baa u baahan tahay bare waxa u baahan tahay baruhu waa jiheeye kaliya waxa u baahan tahay jiheeyihii oo kuu furaya wadada kadibna adaa qaadi doonay ama wuxuu ku tusayaa qaabkii aad u qaadi lahayd kadibna adaa lugahaaga ku soconaya halkan marnaba layskuma qoodiyo qaado afka wax layskuguma siiyo marka waa inaa wax walba adigu qabsataa wax qabso oo naftaada ku hagarbax kuna hagarbax. Alright, marka waxa weeye waxa u baahan tahay macallin waxa u baahan tahay deegaankii aad wax ku baran lahayd waxa u baahan tahay deegaankii tusaale ahaan kale iskuulkii ama meeshii aad wax ka baran lahayd waxay doon ha ahaadeen ama online ha ahaadeen ama physical ha ahaadeen tusaale ahaan waxaad sidoo kale u baahan tahay lacagtii aad ku baran lahayd wax walba waxay u baahan yihiin lacag waxaa jirta there is no free lunch waxa la yiraahdaa ma jira qadab bilaash ma jira la yiraahdaa marka wax walba oo aan nolosha rabtay inaad gaartid waxay leeyihiin qiimo ay leeyihiin haddii aysan qiimo lahaynna maba ahanba wax jiraba wax walba qiimo ay leeyihiin. Right, so waa inaad isweydiisaa war lacagtii aan ku baran lahaa xagee bay ka imaanaysaa. Alright, su'aalahaas oo kale waa muhiim sidoo kale waa inaad isweydiisaa war tabar ma u hayaa inaan waqtigan ku barto waxaan sidoo kale waa inaad isweydiisaa war waqti ma u hayaa tabartii waa macnaha taagtii iyo awoodii adiga ah shakhsi ahaantaada maskaxdii baa laga rabaa soo jeedkii baa laga rabaa tusaalaanka habeenkii inaad soo jeedid man talaba al-ula sahara al-layali qofkii yacni sarreyn dalba waxay habeenkii ku soo jeedaa ama habeenada soo jeeda macnaheedu ma ahan inaa habeenkii dhan soo jeedi ee waxa weeye waqti badan ayuu waxaan ku bixiyaa si uga midho dhaliyo marka waqtigii ma haysta sidoo kale tabartii iyo adkaysigii waxaan caqabadaha ku soo wajahayee ma leedahay. iminka waxaanu yacni abaarana ujeedkii ama qorshihii aa lahayd qodobadii lama huraanka u ah inaad raacdid ama lagaa rabo inaad samaysid si aad uga midho dhalisid waxyaabaha aad doonaysid. qodobka koowaad waxa weeye bare balse ogow ama xasuusnow macallinka ama baruhu waa bidhaamiye keliya wuxuu ku leeyahay war waxaan baa la sameeyaa ee kuma dhahayo ama kuma samaynayo wixii lagaa rabay adiga inaad samaysid qofna qof wax uma qaban karayo qof walba naftiisa ayuu wax u qabsan karaya naftiisa ayaa wax u qaban karaysa awoodiisa iyo tabartiisa iyo taagtiisa ayuu fuulaya laakiinse dunida waa la isku caqli celiyaa waxbaa la is tusaa waxbaa la is sheegaa waa la is jiheeyaa wakaas marka waxa u baahan tahay bare kow sidoo kale waxa u baahan tahay inaad wax dhageysatid macallinkii markaa heshid waliba macallin aad kuugu habboon baa u baahan tahay luqadda si aad uga harag baxdid qof yaqaan tusaale ahaan kale kula luqad ah markaa basic tahay oo ku baraya haddaa heshid aad iyo aad bay u fiican tahay haddii qof kale oo waxa weeye macallin oo waxa weeye u dhashay luqadda oo uu kula joogo deegaankiina asaga ayaa toos u aadaysaayoo ka baranaysaa asaga kaaga fiican qofka kale ee luqad kula mida ama luqadaada kale ku hadlaya inuu ku baro sababta maanta dhan waxa aad dhageysanaysaa hadal Soomaali ah ee ma dhageysanaysaa hadal English laakiin macallin u dhashay luqadda markuu ku dhigayo waxyaalo basic uu kugula hadlayo English basic maskaxdaadana waa korinayaan dhageysigaagiiba aad iyo aad u badanaya aragtidaadii iyo ficilka macallinka sameynaya qaabku u hadlayay qofkaas aad buu uga fiican yahay professional kasta ha ahaado qofka luqadaada yaqaan ee ku baraya luqadda laakiinse waxaa ka muhiimsan qof luqadda u dhashay walow hadduu doono professional use ahana. qodobka labaad waxa u baahan tahay dhageysi iyo daawasho tan waxay aad iyo aad ula mid tahay nolosha waxaan ku bees garanaynaa caruurnimadeena markii aanu caruurta ahayn ee aanu aadka u yaryarayn ilmaha yarka aan ahayn ee hooyo dharabteeda aan saarnayn wax walba oo hooyo nagu tiraahdo waxaan ku muujin jirnay qaab
ama waxay noogu muujin jirtay hooyo ama aabe ama ehelka qofkiina mataqaanaa nahayaba wuxuu noogu muujin jireen qaab facial ama facial expression wax la yiraahdo wejiga mataqaanaa baanu ka dheehan jirnay waxaanu ku arki jirnay indhaheena marka annagu hadalka hooyo kasoo yeedha ama aaba kasoo yeedha ama walaal kasoo yeedha dhegtana waa ka maqli jirnay indhahana waa ka arki jirnay markaas waxaa noo fududaan jirtay inaan hadalkii qabanno dunidana waxaa la sheegay ilmayaasha ugu caqliyaal badan ilmaha ugu caqli badan qodobkan waa aad buu muhiim u yahay weliba dadka waxa weeye caruurta dhalay ama caruurta leh aad buu muhiim ugu yahay dunida waxaa la ogaaday ilmaha loo sheekeeyo sheekooyin badan looga sheekeeyo xataa isagoo fahmayn dharabta saaran oo hadli karin ilmaha aad loogu sheekeeyo oo waxyaalo badan looga sheekeeyo inuu aad iyo aad uga maskax badan yahay ilmaha aan loo sheekeyn ee waqti ay waalidkiisu la qaadan marka dhageysi iyo daawasha u baahan tahay youtube-ka aad ama waxa weeye website-yada muhiimka aad waa in la wadaagi doona insha Allah hadhow marka idinkana waa isoo weydiin ka dhaan waxyaalaha u baahan tihiin waxa aasa website-yadaas sidoo kale youtube-ka aasa waa dhageysanaysaa waxaana bixinaysaa attention qaabka si fiican wax loogu dhageysto waxaa laga yaabaa inaa mataqaanaa insha Allah hadhow gadaal uga hadalno qaabka si sax wax loogu dhageysto sababta qofka wax laga yaabaa inuu yiraahdo waxaan dhageysanaya waxna waa qabanaya qofka laba maskaxdood male waa inaad dhegtaada iyo maskaxdaada waa inay isku daloolaan ee dhegtaada waa inay dabaysha u daloolin hadal qofka qodobka saddexaad waxa weeye waa inaad luqadda ku hadashaa qodobka afraad markii aad dhageysid oo maqashid oo daawatid alright markaas hadli ka dhaa ilmaha waa aragtay wuxuu maqlaa hooyo hadalkeeda ama aaba hadalkeeda kadibna wuxuu arkaa qaabkay u hadlayso kadibna wuu dhahaa waxaa la yidhahdaa aaba dheh hooyo dheh baa la yidhaahdaa wuu maqlaa wuuna arkaa qaabka loogu dhawaaqay hadhowna wuxuu dhahaa baaba ama maama wax saas oo kale wuu ku hadlaa kadibna qodobka afraad waa inaa wax qortid qoraalku wuxuu imaanayaa kadib dhageysi iyo hadal buu imaanayaa sababtoo qof aan waxba maskaxda ugu jirin muxuu qorayaa dee okay akhriskuna wuxuu imaanayaa saddexda qodob kadib buu imaanayaa markuu qofku wax dhageysan karo oo fahmi karo kadibna ku hadli karo kadibna qori karo ayuu wax akhrinayaa markaas akhrisku muhiim yahay bugaagta akhrin lahaydeen insha Allah waa in la wadaagayaa si aad luqadda sare ugu qaadaan luqadiina insha Allah qodobka lixaad waxa weeye yaxyaxa iyo xishoodku waxbarasho ma soo galaan haddii aad leedahay luqadda ingiriishka miyaan ku hadlayaa maanaa dadka kula hadlaya dadkan waa iyasayaan waxaasoo dhan hadday maskaxdaada ka guuxayaan please iska saar fadlan iska saar sababtoo ah haddii aad noloshaas ku sugan tahay oo noloshaas waxa weeye xishoodka iyo yaxyaxu ku jira waxbarashadaada la timaadid weligaa horumar kama gaarisid waa inaad iska dhigta adeer macaana qof luqadda u dhashay waxaan waa baranaysaa saaxiib qof dad badan oo bartay baa jira dunida malaayiin baa baratay oo dunida oo dhan baaba ku hadashaba haddaan dhirano oo fahmi karta markii lagula hadlo okay buu ku leeyahay qofku yes buu ku leeyahay thank you buu ku leeyahay waa kabaadiyaa jooga xataa marka waxaan noloshiibay dadka la falgashay adiga ha isku xirxirin maskaxdaada waxa ka guuxaya dadkuna waxa adiga attentionka waxa la yiraahdaa dadka waxyaabaha attentionka ah ama waxa weeye adigu siisid ayay waxa weeye ku isticmaalaan tusaale ahaan kale haddaad tiraahdo dadkan anay niyo iga fikirayaan anay rabaa inay axantaan maskaxdaada oo dhan maanta oo dhan wax ka fikiraysaa dadkii awood ma u yeelanaysa inaa waxyaalo naftaada waxtar u leh ka fikirtid marka ha ku mashquulin dadka adeer wax kaa gala ma jiraan adoo keligaabaa dhalatay adoo keligaana dhimanaya alright marka ha ku mashquulin dadkaas waxyaalaha ay sheegayaan si kastoo aa isugu dayda inaad qancisinna suurtagal kuma ahan qodobka toddobaad grammarka iyo naxwaha barashadiisa ha ku mashquulin markaa bilowga tahay ha oran tense baan baranayaa waxa weeye waxaan baranayaa 8 parts of a speech baan baranayaa waxyaalahaas oo dhan ha ku mashquulin please kaliya waxaad diiradda saartaa macallinkaagu jihooyinka uu ku siiyo grammar hadduu ku siinayo wax yar uu kaa siinaya oo adigu ku anfacaya oo lagama maarmaan ku ah sababtoo asaga ayaa kaaga mataqaanaa kaaga cilmi roon laakiin grammar weyn haddaa ka fikirto oo tiraahdo grammarka mar walba aan hadlayo waa inaan grammarkaygu saxnaa adeer macana qalad hortiis qofka saxma ma gaaro waa inaad khaldantaa kadibna lagu saxaa khaldantaa lagu saxaa markaasaa ogaanaysaa maxaa khalada maxaa saxa okay midda kale dadka haddaa dhegeysta luqadda u dhashay qaabkay ugu hadlayaan grammar ma wada tixgeliyaan dunidan haddaa meelaha kale dunida hadda aadin
grammar cidna kugu qabsan mayso maadaama qofku uu ku fahmi karo ujeedka aad leedahay muhiim ma aha waxa aad tiri iyo qaabka aad u tiri okay qodobka sideedaad waxa weeye qaamuuska qolkaaga iyo jeebkaaga la ogow qolkaaga maxaan ka wadaa qolkaaga waxaan ka wadaa waa inaa haystaa qaamuus hardware ah ama waxa weeye buug camal oo kale waa inaa haysta oo luqadda ingiliishiga sababtoo ah kan waxay ku sahlaysaa inaa erayada iyo meesha ay ku qornaayeen maskaxdaadu si fiican u soo xasuusato hadhow markaa u baahad jeebkaagana waxaan ka wadaa waa ina taleefonkaaga kugu jiraa ama mid yaroo iska gaaban waa inaad jeeb ku wadataa si hadhow markaa meelahaas oo kale maraysid oo erey kuuga soo dhaco ama erey cusub aad maqashid aa uga baadhid ama erey aa ilowdid aad waxa weeye macnihiisa uga soo heshid okay qodobka sagaalaad waxa weeye dulqaad iyo samirku waa doonta guusha la yihahdaa haddaa rabtid meel inaad gaartid waxay doonaan ha ahaadeen dulqaadku waa wadada keliya ee aad uga midho dhicin kadhid haddaadan dulqaad lahayn wax alla abuurta nolosha ma qabsan kadhid okay dulqaadka iyo samirku waa muhiim sababta waa ogahay caqabadooyin badan baa ku hor istaagi doona waxyaalo badan oo u muuqda in aysan suurtagal ahayn inaad ka gudubtid baa la kulmi doontaa si aad waxaan uga midho dhalisid waxaana la yidhahdaa soomaalida waxay ku mahmahdaa dheef baa waxaa la weydiiyey war dheefay xaggee baad joogtaa markaasay tiri dhib gadaasheed baan joogaa yacni dheef waxaa la yidhahdaa wax tarkiiba waxaa la weydiiyey war xaggee ka helnaayey waa la weydiiyey markaasuu yidhi dhib maaragta soo dhaaf dhib markaad soo dhaaftaan baa ii imaanaysaa yacni dhididka iyo tamarta kaa baxasa waxa ay waxtar ku yeelanayaan qiimana ku yeelanayaan kolka aad dhaaftid ee aad ka guulaysatid insha allah waxaana rajeynayaa inaad ka midho dhalin doontaan ilaahayna subxaana watacaala wuu inii sahlaya sababtoo ah qofka ilaahay dadaalka ma dayaco gaalada waa aragti maanta waxay ku dadaalayaan dunida inay horumar gaarsiiyaan ilaahay ma dayacayo dunidooda waa la siiyey wax walba u shaqaysteen laakiinse halkaana lagu siiyey aakhira waxba kuma leh hadday dhintaan gaalnimo ku dhintaan okay qodobka tobnaad waxa weeye tijaabi naftaada waa inaad imtixaan iska qaadaa imtixaanka macnihiisa ma ahan inaad waxa weeye waxaan aad taqaanid iyo in kale ee waxa weeye war wixii aa akhriday wixii aa baratay wixii aa maqashay wixii aa qortay inteebaad ka xasuusataa weeye imtixaanku saasaa naftaada loo tijaabiya marka tijaabadu waa saas oo kale waa inaad intaa muraayad hor istaagtid aa english ku hadashaa waa inaad dadka intaa hor istaagtid english kula hadashaa waa inaad waxa weeye guriga markaad joogtid ashyaada english waxa weeye ku tiraahdaa naftaada maqashii sababta waxa ugu baahan ee ugu baahida badan inay maqlaan waxyaalaha u baahan tahay waa naftaada marka intaasaan waxa weeye okay mawduucu aad iyo aad buu u dheeraaday intaas baa maanta kusoo koobaya thank you very much aad iyo aad baa u mahadsantiin waxa kaliya ee ayna ka dalbanayno ama ayna ka codsanayno waxa weeye inaan horta subscribe channelkay Catches hadhaan sidoo kale like iyo share inaad la wadaagtaan inta lagama maarmaanka tani waxay caawinaysaa waxqabadkeena waxa ayna suurtagelinaysaa inaan waxyaalo badan oo muhiim ah oo waxtar idinkana inay leh aan soo gudbino insha allah intii tabarteeda kol walba anaga wax ma hakrano laakiinse dhiirigelintu waa lama huraan alright so intaas maanta kusoo koobana fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe tahal ilaawin haddii aad nala joogtayna like iyo share iyo commentiga qaybta su'aalaha iyo waxyaalaha u baahantahay inaan ka qanciyo halkan nagula soo wadaaga aad iyo aad baa u mahadsantihiin kulanti dambe insha allah oo aad iyo aad u wanaagsan ayaan rajeynayaa haddii la helaadno waana والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.